shirkan wadatashiga gudoomiyaasha gobolada kuwa degmooyinka Koonfur Galbeed iyo wasaaradda arrimaha gudaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxa maalintii shalay si wada jir ah u dahfuray gudoomiyaha golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. shirka ayaa ah mid lagu xoojinayo wada shaqeynta gudoomiyaasha gobolada kuwa degmooyinka iyo sida ugu wanaagsan soo gudbinta marxaladaha degmooyinka Koonfur Galbeed waxaana goobjoog ahaa hay'adaha deeq-bixiyaasha kuwaasi oo lagu casuumay shirkan oo maalintii labaad galay ayaa waxa ka qayb galay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dawladaha hoose dib u heshiisiinta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed agaasimaha guud ee wasaaradda waxaana la isku dhaafsaday xogaha degmooyinka iyo gobolada aqabadaha haysta sida looga gudbi karo iyo wada shaqeynta waarta ee dhaxmarta deeq-bixiyaasha ama hay'adaha ka howlgala degmooyinka Koonfur Galbeed. qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka oo la hadlay Jubbaland TV ayaa sheegay in xilligan shirka ay ka qayb galeen wax badan ay ka faa'iideen. gudoomiyaha degmada Marka Cabdullaahi Waafow ayaa ugu horeyntii goobta ka hadlay. waxaan halkaas u nimid inaan ka qayb galno shir weyn oo halkaas ka furmay oona loo furay maamul goboleedyada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya. shirka run ahaantii waxa la soo jeeday ama la soo yimid ama lagu hadlayay sidii loo dardargelin lahaa maamul dhisidda degmooyinka iyo degmooyinka ka maqan gacanta dawladda sidii loo gaari lahaa iyo maamul wanaaga Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maaragtay muxuu ahaay shirkaasi loogu hadlayay. run ahaantii shirku wuxuu socdaa maalintii labaad. gudoomiyaha degmada Diinsoor Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa sheegay in ka qaybgalkiisa shirka ay muhiim u ahayd. ilaahay baa mahad iska leh oo inta soo kay keenay anaga iyo degmooyinka Koonfur Galbeed anta meesha waxa laga casuumay horta ugu horeen gudoomiyaalka gobolada Koonfur Galbeed iyo gudoomiye degmooyinka degmada iyo Koonfur Galbeed waxaana looga casuumay meesha oo la isku imaaday isbarasho oo degmooyin inta isbartaan oo Koonfur Galbeed wasaaradda arrimaha gudaha dawladda Koonfur Galbeed iyo wasaaradda arrimaha gudaha dawladda federaalka oo ay iskaashanayeen ayaa isku geereen degmooyinka Baay Bokool Shabeellaha Hoose. wax badan ayaan ka faa'iiday oo sidii oo dawladda wanaaga maamulka sidii oo loo gelinayo xaaladda oo ay ka jirta amni darrada sidii oo golaha deegaanka oo loo sameeyay deegaamada sidii loo nabadaynayo wax badan ka faa'iidnay. Maxamed Aadan Socdaal TV-ga iyo raadiyaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland magaalada Baydhabo Janay.